gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay roobabkii daayay maalmihii ugu dambeeyay wuxuuna shaaca ka qaaday roobabkaas ay si fiican uga deegaan guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxay ahayd roobabkaasi roobab aad u fiican waqti fiican oo dabayaaqadii deerta ku beegmay oo xilliga loo yaqaan xajka inta badan marna haloo marna ay weydo marka alxamdulillah dhul fara badan oo Soomaaliland ayuu gaadhay kolka aan kasoo bilowno dhinaca fariga runtii gobolka Sool meelo fara badan oo kamid ah ayuu helay magaalada Laascaanood Kalabay Galataag dhinaca koonfurta inteeda badan uu helay dhinaca Nugaashana Soomaaliyo god aalo xudun dhinacyo qaar aanu helin sida Carool iyo meelaha qaar kale ay kam tahay hareeraha soo ka helay eedada wixii u dhow ka helay gobolka Sanaag runtii waa uu helay meelo fara badan waa uu helay inkastoo ku fara badnaa meelada uu ahaa oo tumayo ama shuux uu ahaa meelaha qaarna uu roobab waaweyn ay ka beeyeen dhinaca awdal runtii gobolka awdal sidoo kale isagana aad buu helay meelo fara badan buu ayuu ka helay oo si wanaagsan roob lagu qodosaday baa runtii dhinaca aada iyo dhinaca kaleba runtii ka da-ay salad iyadana roobab wanaagsan baa runtii ka da-ay khaasatan sayla iyo dhulkii banka ahaa oo dhan gaal dhulkii oo dhan runtii aad iyo aad buu uga da-ay sidoo kale gobolka saaxil iyadana meelaha qaar buu ka da-ay meelahana shuux yar buu ku ahaa marojjeex runtii iyadana sidaas leeg meelana si fiican buu uga da-ay marka kolka saaxilna sidaas kale marka guud ahaan Soomaaliland marka aragto ilaa si fiican buu roobkaasi ugu wareegay inta badan kale gudoomiyaha hay'adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh waxa uu ka warbixiyay roobkaasi iyo khasaare uu geystay iyo deegaamadii uu khasaarahaasi ka geystay haddaynu ka soo qaadno dhinaca gobolka Sanaag tuulooyinka Shiido Laascaanood may lixii runtii roobab lixaad ayaa ka da-ay oo ugu horaa eegadaasi Shiido waxay qaadgaabo u jirtaa masaafo lagu qiyaasay ilaa 7 kiiloomitir Laascaanood ilaa 135 kiiloomitir bay u jirtaa deegaanadaasi iyo deegaanka la yiraahdo may lixii deegaanada xeebta ku taxan runtii meelaha qaar waxyeello ayuu gaarsiiyey sida Shiido oo kale ereyada ku dhow waxaa ku dhintay hal qof baa ku dhintay oo roobkaas wararku ay loo soo sheegayaan hal qof baa ku dhintay guriyana runtii waxyeello ayuu geystay sidoo kale ilaa may iyo Laascaanood iyo xiisna guriya ayuu iyadana ka dumiyey xoolana runtii ereyada waxaa loo soo sheegay in xoolana uu waxyeeleeyey uu qaaday marka runtii guud ahaan soo qaadayso dhinaca kale salan iyadoo biyaha kale magaalada Sayla guryo way jirtaa laakiin guritaan weyn lanooma soo sheegin markii aan la xiriirnay maamulkii gobolka aan la xiriirnay biyaha tagay waxyeelada weyn ee jirtaana waxa weeye wadooyinkii loo mariyay Sayla oo kale ayaan imika go-an oo aan la isu mari karin waqtiga oo kale runtii baabuurtii kii barasaasna ku jiro ayaa runtii 3 maalmood baa ku jira wiisha marka wadooyinkaasina runtii waa xidhan yihiin وسهيب عبد الجلال تلفزيون قرنك Somaliland Hargeysa.